السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دو أفن أكاديمي واني قولة الكيني تامر محمد. sida wad ognahay waxaan bilownay course lagu magacaabay Basic of Computer waxaana ka soo qaadanay hal cashir course-kaas. Cashirkan waa kii lamaad ee course-ka. haddaadan soo daawan cashirkii hore course-ka markaa manala jaan qaadi kartid oo isku day inaad soo daawatid cashirka. haddii nimaada markaa cashirkeennii maanta cashirkeennii hore waxaan kusoo sharaxnay right click left click waxay yihiin markaa waxyaalo aad u fara badan aan kusoo sharaxnay. marka waxaa soo qaadanay qaybtan toolkan iyo waxyaalaha ay qabtaan. marka cashirkeennii maanta waxaan ku qaadanaynaa tuulasha inoo dhiman. haddaan usoo gudbo toolka lamaad ee sort by asna sidoo kale markaa muuska aan dulgeeyo waxaa ka faracmaya markaa tuulo kale. hadda maxay yihiin markaa waxyaalahan maxayse qabtaan? kusoo dhow cashirka. okay, sort by يعني waa markaa iconiska halkan ku saaran u kala hormari yani iconiska oo kale tusaale waxaa rabtaa iconiskaaga si nidaam u yaalan in yani magac markaa magacooda sida u kala horeeyaan u kala hormariso. tusaale oo kale hadda midkan wuxuu ka bilowdaa arkan ee u bilowdaa marka la fiirinayo xaraf ahaan waxaa horeeyo markaa midka eega ka bilaabto. marka adigoon yani aadan qaadin oo halkan geenin midka kale halkan geen wuxuu ku fudud inaad isticmaasho toolka sort by. waxaan imaanaynaa desktop qaybtiisii maran kadib waxaan ku leenahay right click kadib waxaa inoo soo baxaya markaa faahfaahintii. markaan aado sort by kadibna aan ku dhufto by naming sida arkaysid markaa uu kala hormarin oo by naming ayay u kala hormareen. hadda marka lagu soo rabto sort by kadibna aan dhaho sizing sida arkaysid waxa uu ka hormaray midkan waana midka yani xambaarsan waxyaalaha iyaga dhan markaa ka size weyn. hadda marka sort by aan kusoo laabto kadibna aan ka doorto by item type sida arkaysid dana markale midkan ayaa kor aaday. hadda markale aan dhaho dana sort by data modified sida arkaysid dana midkan ayaa kor aaday. marka wuxuu qiimeynayaa shayyaasha ay isticmaalaysid sida markaa u kala sareeyaan. hadda by sizing date sida cabirkooda uu kala weyn yahay iyo GB-yada ay xambaarsan yihiin. markaa sort by waxa u isticmaalaysaa sida tan aad soo aragteen. toolka labaad ee ah refresh. hadda refresh maxaa loo isticmaalaa? refresh waxa u isticmaali kartaa in computerkaaga uu refresh ku dhaho. waa maxay marka refresh? tusaale oo kale anoo yani soo furtay markaa software fara badan ama waxyaalo fara badan computerkayga wuxuu noqday mid culays ah. sideen u xalin karaa markaa? sidaan u xaliyo markaa waxaan u baahanahay in aan isticmaalo refresh. tusaale oo kale computerka adiga oo software badan soo furtay waxaa ka dareentay inuu culays yahay waxaad imaanaysaa desktopka ama markaa pageka aad ku jirtid haduu yahay markaa sida folder oo kale waxyaalaha kadib waxaad ku leedahay right click kadib waxaad kasii dooranaysaa refresh. cashirkeeni maantana halka ayuu ku ekaa. waa aniga walaalkeen Taamir Maxamed. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. subxaanaka allaahumma wabixamdika astaghfiruka wa atuubu ilayk.